waxaa daqiiqada ka dhiman doorashadii in lagu dhawaaqo natiijadeeda. dad badan oo Soomaali ah ayaa tartamaya. dad kala duwan ayaa halkan buuxa maanta oo sugaya natiijadaasi. waxaan taaganahay xaafadda Siidar oo Soomaali badan ay degan tahay. waxaa ii suura gashay inaan arko saaxiibkay Xuseen Kanaac ka mid ah wariyaasha Soomaalida. Xuseen, bal xaaladda Soomaalida ka war maanta. أهلا وسهلا وسهلا dadka aan joogin Minnesota ama jooga meel aan halkan ahayn. dadka aan fahansaneen election-ka waxaa la yidhahdaa election raaca. waa qofka xisbiga soo baxa, waa qofka u soo baxa filaynaya. nidaamka dimuqraadiga dhowr qof baa u sharaxan, waa inuu qof dimuqraadiga ka doorto dadkaas. doorashadaas iyo doorashadaas waxay ku xiran tahay maanta dhacaysa ku xiran tahay. halkan Soomaali badan baa tuban, waxay ku kala tuban yihiin qofka wuxuu haystaa qofku taageersan yahay. aad iyo aad waxaan ugu kala taageersan yahay fikirka qofku ka helo darisnimada Soomaalinimada waa number 1 iyo wax xisaabtan family sometimes ciyaalka xaafadda ciyaalka xaafadda waa ku jirtaa waxyaabo badan baa lagu socdaa marka wuxuu socdaa si wanaagsan. laba daqiiqo keliya ka hartay inuu soo xiro districtka keliya marka Soomaalida oo dhan waxaan ugu jeedinayaa cid walba ummaddan waxa qabanaysa. waad mahadsan tahay. waxaa halkaa taagan Yuusuf Ogaas. Yuusuf, soo dhawow marka hore. kaasi waa abwaan Orshe oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. aad baan ku salaamay abwaan Orshe. waaya Yuusuf. waay waay thank you. kaas waxa waa Yuusuf Ogaas oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida. daawadayaal, dad badan ayaa tartamaya. baabuurkan waxaa lagu taageerayaa Biixi oo ka mid ah baabuurtu way badan yihiin. gabadhaas ilaanay Biixi taageersan tahay. adigana Biixi taageersan soo ahayn. waayahay halkan Saciido Shaaciye waa gabar kale oo Soomaaliyeed boorkeeda. Jamaal Cusmaan ayaa jira isaguna wiil Soomaali ah. Soomaalida tartamaysa daawadayaal aad bay u tiro badan yihiin. maanta ayaa lagu wadaa saacad kadib in natiijada la soo saaro. dadka intooda badan waxay taageersan yihiin Ilhaan Cumar oo iyadu u tartamaysa Kongareeska Mareykanka. aad baan idin salaamayaa. kan waa Jamaal Cusmaan. aad iyo aad ninkan AJ ayuu taageersan yahay asagana hooyadan Soomaaliyeed. maasha Allah. maasha Allah. dhinaca xataa la qaybinaya meeshaan. dadkan AJ Awad ayay taageersan yihiin. wiilkaas AJ Xasan oo taageersan yahay. waxaan ku suganahay xaafadda Soomaalida u badan tahay ee Siidar. doorashada intaan lagu dhawaaqin ka hor ayay Soomaalidu sii dabaaldegayaan. taasina waa kalsooni ay ku qabaan in natiijada ay dhinacooda ay soo marto.
kursigan waxaa ku tartamaya dad badan oo Soomaali ah ayaa wada tartamaya oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed dalkan wax ku baratay kole guushu mid ka mid ah ay raaci doontaa dhalinyarada tartamaysa waxaa ka mid ah Suud Colaad waxaa sidoo kale ka mid ah Siciida Shaaciye Nabiha Maxamed assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa ninkaasi waa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed haye maasha Allah maan dareenkaada ka waran haye maasha Allah aad baan idin salaamayaa waad mahadsantahay walaalkay dadka way kala duwan yihiin halkan waxaa taagan hooyooyin Soomaaliyeed maasha Allah ilahana taageersan yihiin dhankana dhalinyaradii ayaa kubadda ciyaaraysa waxay ku sugayaan ilaa looga dhawaaqayo natiijada sarahan waa saraha Soomaalidu ay degan tahay Silver natiijada waxaa lagu dhawaaqayaa goor dhow daqiiqado yar ayaa ka dhiman dadkuse waxay muujinayaan shucuurtooda dadkana arkaysaan waxay u soo kala codeeyeen qof kastaba qofka uu taageersan yahay aad baan ku salaamayaa maasha Allah dadkan waxay taageersan yihiin AJ waa wiil sharci yaqaan ah waa sharci yaqaan Soomaaliyeed aad iyo aad ninkan waa Jamaal Cusmaan isagana sidoo kale taageerayaal badan halkan ku haysta ما شاء الله والله صدق والله شيء waayahay daawadayaal waad arkaysaan intaan la gaarin
natiijada doorashada Soomaalidu aad bay u dabaaldegaysaa daqiiqad kastaba waxaa la soo tabanayaa warar iskhilaafsan oo sheegaya in qof hebel guulaystay laakiin ilaa iyo hadda natiijo rasmi ah oo daawadayaasha TV-ga Universal aan la wadaagi karno ma hayno waxaana ka warqabnaa in natiijada lagu dhawaaqi doono daqiiqadaha ugu dambeeya wili waaye natiijada wili waaye waxaan rajaynayaa ay seedi sababtoo ah hadda ayay soo xirantay codeyntii kadib waa la tirinayaa marka la tiriyo la hubiyo ayaa lagu dhawaaqaa dadka u tartamaya Ward 6 waxaa ka mid ah Jamaal Cusmaan Cabdirasaaq Biixi Nabiha Maxamed AK Xasan Saciida Shaaciye AJ Awad Cabdirasaaq Biixi Maxamuud Xasan BBC malhar ayuu isaga haray Saciida Shaaciye ayaa ka mid ah كاغا ولا شيء ماشي الان كويس ما شيء يا هاي ماشي كويس بس ما بقدر هذا سوى راسي ولا قصدنا Carlos. مع سويسان ما شاء الله السلام عليكم الحمد لله ان شاء الله عفوا